sida aad la socotaan toddobaadyadii u dambeeyay waxa warbaahinta gumaysiga iyo kuwa u adeegaba ay soo gudbinayeen warar sheegaya in gobolka Shabeelle xaruntiisa magaalada Goday oo shir uga bilowday dabayaaqada ururkii Itixad iyo maamulka kililku sheega oo wakiil ka ah xukuumadda gumaysiga Itoobiya. haddaba si aanu ogaano waaqica dhabta iyo xaqiiqada ka jirta halkaasi ayaa waxaanu waraysi la yeelanay mid ka mid ah duqeyda iyo waxgaradka magaalada Goday. su-aashii ugu horeysay ee raadiyo xurriye uu weydiiyay ayaa waxay ahayd bal inuu noo sheego dareenkiisa ku wajahan shirkaasi iyo waxa uu yahay shirku. shirkaas waa shir adu la shirqool aan sidaan arko aragti ahaan waa shir hore aan u jirin oo runtii hadda xaalad cusub wadanka ku hogaaminaya oo kunay u dhaxeeyo qoladan itixaadka iyo qoladan fikrada wax wada hadal oo fiican oo natiijo waa shacabka uusan ka muuqanin sida dadka bulshada dareenkooda ka muuqatana uma hayaan wax dareen oo saa usii weyn runtiina mana filayo in wax ka bedeli doono shacabka. waxay la tahay in kolley dad iska yidhi waxyaabaa dalxiiska iyo waxa isaga joogo dalxiiska iyo waqtigiisana inuu dhammaan doono bay la tahay. yaa ka soo qayb galay shirkan markii la fiiriyo dhinaca Itoobiya? runtii horta shirka markaad eegto ma jiro wax mas-uul Itoobiya ka socdo oo shirkan kasoo qayb galay hadduu yahay hadduu ka socdo xafiiska ra-iisul wasaaraha hadduu ka socdo dowladda federaalka iyo hadduu ka socdoba xagga ciidamada. laakiin shirkan waxaa yimid qodob qoryo wadato oo qoladan hadda xukuumadda oo meesha joogtaa yimid. waxaa kaloo iyadana goobta aan ka maqnayn oo goobtaa joogay hadduu ninkii qaybta siyaasadda haystay gobolka Goday. marka waxa ugu sarreeya nimanka la kulmaya wuxuu yahay ninkaa siyaasadda oo meesha ugu sarreeya. mana filayo in wax isbedel oo weyn ay keenayso sababtoo haddii heshiis laga doonayo iyaga ama wax dan aho saa si weyn laga leeyahay waxaa dhici lahayd in dowladda federaalka Itoobiya rag ka socdo oo sida mas'uul iyo melazanawi la taliyayaashiisa iyo dad noocaas oo kale inay kala soo qayb galaan ma aha maanta in ninka siyaasadda Goday haysto inuu la kulmo ma ahayn. runtiina waa wax shacabkana aan intaynin waxbana aan ka bedelinin dareenkooda iyaga ahaantoodana khiyaari noqono maanta wax soo jeeda ay iska tahay. wakiilka melazanawi ee ogaadeenaya tawalde isagu ma ka soo qayb galay? hada yaraatee ayar shirka ninka kamiisa soo qayb gelin ninka qaybta kililka shabaab xilsaaran inuusan ka soo qayb gelin. ninka ugu sarreeya ka soo qayb galaya sidaan hadalkii ugu sheegay waxa weeye waa ninka siyaasadda gobolka Goday haystay weeye ninka weeye ninka ka soo qayb galay lagu sheegay. hada yaraatee wax mas'uul kale oo kililka u qaabilsan xagga dowladda federaalka kama soo qayb gelin. hadda inta ka tegay waxa la sheegayay oo magaalada aan nafteeda aan ku arkayay haddii inay iyo hada koox noocaas oo kale marka ma filayo wax natiijo fiican inay ku kordhin doonto. mana jiro wax mas'uul dowladda federaalka ka socdo haddii yahay ciidamada u qaabilsanaa kililka shanaad iyo haddii yahay mas-uuliyiin kale oo ka sarreysada ayaa hor iyo dib ma jiro wax kasoo qayb galay shirka isaga waana bishirun in yaroo lacagan lagu yar soo qaatay qasmada kililka intii yar maaxatin lagu soo fijiyo. marka aad fiiriso dareenka dadweynaha reer Ogaadeniya waase dareenkoodu say u arkaan? haddii dadka Goday anaaba ka mid ahoo dareenkayga waa sida aan ku hormariyay marka horeba haddana guud ahaan dadku dareenku uma arkaan. nimankan waa lagu daalay hadda ka horo waxay ahayd nimankii 93 iyo halgankii ugu horreeyay ka bilowday meeshan iyada abuuqa magaalada Goday halgankii ka bilowday buu ahaa waana la ogaaday niman dhaqaale iyo lacag meel u wakiiliyay inta waa la ogaaday. marka annagoo dhan haddaan nahay shacabka ama baadiyaha ama gobolka ahaatee wax dareen aan u hayno ma laha adeer nimankan ma rabno ma doonayno. marka waxaa la sheegayaa in magaalada ay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca ammaanka ah iyo dhinaca dhaqaalaha ah ay ku soo kordhiyeen. arrinta iyada maxaad nooga sheegi kartaa? horta wax annaan oo iyagu ay keeneen oo adiyahoo hadda xaaladda Goday sideedii hore ay ka bedeleen ma jiro. wax kale oo hadda nimanka ay kusoo kordhiyeen oo dhaqaalaha ama lacagta sida dinaaro ay keeneen male. annagu Goday ahaan xataa dareemaan waxaan u aragnaaba inaan nabaddigin oo dhuuqan faraha badan iyo wadanka anaga nabadgelyo ah inaan kala dhaafo laga dhigin. ayaa hana dhaafaana sharkooda iyo khayrkoodaba hadday shal wataana ilaahay hana dhaafiyo. waxaa la sheegayaa haddii iyada wax siyaasada aynan la ku yeelanayn qodobka hadda magaalada Goday waa la soo dhex maraa oo iyaga shuruudda koowaad saa lagaga dhigay.
taana waxaa caddayn u ah haddii siyaasad loo ogol yahay inay qayb ka noqdaan waxaan arki lahayn ama nin dowladda federaalka ee ka socda oo Ethiopia oo wada hadalka qayb ka ah ama malaska laftiisaan arki lahayn ba isagoo waxaan doonayay inuu xataa ka dhab noqdo dareenka dadweynaha iyo waxa idin muuqda marka aad fiirisaan ilaa nimankii xasanow waad aragteen magaaladii bay idinla joogaan waxay sheeganayaan inay ahaayeen jabhad halgami jirtay maxay tahay ujeedadoodu ma inay iska soo xaroodaan oo qoryaha iska soo dhigaan baa qorshahoodu ahaa mise damac siyaasi ah ay leeyihiin oo waxay rabaan inay maamulkii ka mid noqdaan oo wax hogaamiyaan waa niman tabar waaye horta marka koowaad inay yihiin oo meel ay ku noolaadeen waayey dalkan guud ahaanba saad ogtahay xilli hore ay ugu dambeysay oo waayadan dambe wax dhaqdhaqaaq ciidana ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed midna kama jirin weli ma ka qayb gasheen ama ma tagteen meeshan cadaadley ee shirku ka socdo waa laga qayb galay xogta rasmiga laga hayana waxay ahayd kolley in wax adu dantooda ah aadan lagu soo hadalqaadin haba yaraatee wax heshiisa meeshaas wanaagsan oo hadda la dhihi karo Ethiopia iyo iyaga udhexeeya oo lagu gaarin ma jiro mana jiro wax dan deegaan ama dan dal ah oo meesha iyadana lagu falanqeeyay dhibaatooyin kale aad marka ciidamada wayaanaha iyo dabaqoodi ay u geysteen dadka shacabka ah horta qoladan iyagu xamaarada wayaanaha oo dhawaayadan dambe lama arkaynin xaaladda ayaa dhisa iyagana wax kale kaga furan yahay shay xagga xukuumadda oo xaggaas u banaayeen marka waxaa yar moodaa markii dareen ahaan qoladan soo xaroonshahoodii inuu wax badan u faa'iideeyay oo balse jin yar geliyo inay xataa meeshii dalka kusoo noqnoqdaan waxaan iyagana doodka ka marnayno intaa garab ordahayo qoladan booliska la dhaho oo ninkaa isageed hadda sheegaysa magaciisa uu nabaanduulo ka yahay ama madax uu ka yahay marka waan qoladaas iskaashanayso mana filayo nabadgelyada annaga ka mas-uula haddaan odayo nahay iyo haddaan aqoon-yahano nahay iyo haddaan ururo bulsho nahay dhalinyaro iyo haweenba haddii aynu intaa kaga gudubno waraysigii sharciyan heshiiska noocan oo kale ah muxuu ka qabaa qaynuunka caalamigu waa kana garyaqaan reer ogaadeenaya oo aanu isna arrintaa ka waraysanay waxaanu ku bilaabay heshiis marka la yidhaahdo qasab waxaa ah heshiiskaasi inuu horta yahay dhinacyada gala mid qabanhaya waa inay ka mid tahay waxaa kaloo loo baahan yahay in aragti mirror image ah oo rabitaanku uu siman yahay oo ay labada dhinac raalli ka tahay oo ay si isku mid u doonayaan waxaa kale oo la shardiyaa oo qasab ah in actionada la mamnuucay iyo ficilo la mamnuucay ama qowl iyo ficil wada socda horta waa inuu meesha jiro midda kale ciidamo hadday jireen ciidamada in la kala qaado weeye waa qodobka kale ku noqonayaa in la sameeyo cid korneer heshiiskaas oo superfishi samaysa iyo monitoring heshiiskiisii u fulay cideysay mar walba waa in muwaafaqin ay yeelato intaa marka laga soo gudbo haddii intaa la isku afkarto waxyaabaha in laga hadlo ay tahay waxaa ku jira security and militarization waxaa la yidhaahdo amniga iyo in dhulkii dee la militariyeeyey haddana militariyeyntii laga saaro oo dhulkii dhul sifiliyaana dib lagu soo celiyo maadaama marka hore la isku dagaalayo haddana dagaalkii u dhamaaday markaa kadib haddana waxaa muhima in laga hadlo administration ama transitional administration waxa la yidhaahdo nidaam maamul oo kumeel gaara oo lagaga guurahayo nidaamkii hore iyo isku dhacii iyo dhibaatadii markaana loogu gudbahayo nidaam sharciga ku taagan marka waxyaalahaas oo loo shardiyaa way badan yihiin qaabka wadaxaajoodka ee urur jiray iyo dawlad dhex marayo yaa ka noqon kara dhexdhexaad heshiiskaas oo kale wallahi wax practice oo hadda dunidu ay wada samaysaa iska jira oo caadi ah dadkani haddii iyagu intay qalmiga isla galaan wax isla malmaluuqdaan waxa weeye oo taasi uu soconayo uu shaqeynayo dadka horeba ismayna lahaayeen international boards baa jira UN ka noqotaa regional organizations sida hadda IGAD oo kale ama SADC oo kale ama waxyaalo noocaasi urur goboleedyada way ka noqdaan sida jaamacad alcarab iyo way ka noqon karaan kuwan AU-da international boards oo peace u taagan iyo nabadda iyo dhexdhexaadinta iyaguna way ka noqon karaan haddii marka la doonayo waxaan inuu midho dhalo oo macno yeesho marka ma jirto sabab meel mugdi iyo qol mugdi inta loo galo loo malmaluuqaayo ma jirto